Soomaaliya oo idil maanta halkan waxaan rabaa inaan la wadaago project yar oo aad u xiiseynayay kadibna aan maanta anigu sameeyay. Waxaan halkan ku haynaa waa Arduino Uno oo programmiyay already. Projectigan waa project IR sensor servo motor aan isticmaalana wuxuu dareemayaa macnaha sensorka iftiinka iyo mugdiga ayuu dareemayaa mar allaala markuu iftiin dareemo mugdi dareemo waxaa wareegayo servogan markaan gacanteedu u soo dhaweeyo macnaheedu waxay tahay mugdi ayuu dareemayaa tunistahan dareemahan kaasoo ah markuu mugdi dareemo servogana way wareegaysaa markaan gacanteeda ka fogeeyo iftiinka soo laabtana servoga gadaal ayuu soo laabanayaa sidiisii ayuu soo wareegayaa haddana waxaan halkan tusaale ahaan haddii aan isku dayo inaan idin tuso qaabka ay u shaqeynayso waa sidan gacanteeda ayaan soo dhaweynayaa mar alla marka gacanteeda soo dhaweeto waa wareegay markaan ka celiyo mar kasta oo gacanteeda soo dhaweeyo way wareegaysaa markaan kasoo wareejiyana way soo laabanaysaa haddii aad rabtid inaad dhistid barnaamijka noocan oo kale ah waxaad u baahan tahay waa Arduino Uno board iyo waxaa kaloo u baahan tahay servogan iyo waxaad kaloo u baahan tahay sensor nooc walba ha ahaado aniga hadda tusaale ahaan kan aan isticmaalayaa LDR light dependent resistor nooc kale oo ah ayaa jiro isaga waa isticmaali kartaa sensorka ah transmitter and receiver ka ah kaasna waa isticmaali kartaa any kind of sensor oo nooc kasta ah oo dareemayo macnaha iftiinka iyo mugdiga waad isticmaali kartaa marka projectigan waa project aad ii xiise geliyay waxaan ka helay netka youtube-ka waan soo gatay componentska iyo alaaba loo baahnaa waan sameeyay waxaana aad u jeclaaday in aan Soomaalida walaalahay ah la wadaago luqadeeda hooyo iyo dadaalkii aan sameeyay in aan dhammaantood la wadaago waxaan rajeynayaa inaad projectkan xiiseyn doontiin iyo kuwa kala badanba. Assalaamu calaykum. Bye.